وبركاته. أنا اللي هذا بشير أبشر عن خيره وهم قادر أمير بشير وعن نانتي عن وقت وهلا إيران مدة صومالية سوق بيو أمبريو يبغادين أنا جوجا مجال إسطنبول هولو إيمي أيها ويابي أنت عن جوجي مجال إلى أنقرة أنقرة جوجي برشة صومالية حبك أنا أوضح من يقاب كذا أنا بروح إيران أنت تابتو عن شعلستي هذه عن هذا النية سلمان أيان هذا النية يمديسة صوتي هاي وأنا كلية عن انترناشونال خلاص عني قيم حقوق أنا كقاعد برشة بوينت الصومالية الدنيا دافع كلها جارحان تركيشكا دي مالا بدن وبطلع برنامجه وكسود دايو عن تتكاد وحيسيا كم لها أيان هو هذا النية waxaa kale intaas ii raacsan waxa weeyaan horta wadankan Ankara aad iyo aad buu noo soo dhaweeyay Turkishka aad buu noo soo dhaweeyeen Soomaalidana aad bay u jecel yihiin bulshada Soomaaliyeed markaan fiirsana waa bulsho jaamacadaha dhigta meelaha mataqaana ku jira waxbarasho ku jira oo aad u dadaalaya waa dad aad u wanaagsan oo dad aad isku xiran sida Istanbul markaan aad baan uga sii helay waxa weeyaan sida wanaagsan oo wada shaqaysanayaan oo ordayaan oo business u leeyihiin ma aad ii safxad gelisay waxa inta hadda ii sharaxday haween anigu reer Ankara ahay jaaliyada Ankara aad baan u salaamayaa maadaama ay leeyihiin dadka macnaha ay sameeyeen jaaliyada cusub oo heer sare oo mataqaana dadku ku midaysiin jecelna horumarka waxaan hadda ku gubaabiyaa mar walba in businessada la hormariyo in warshadaha ishaga dalka mataqaana laga wasaqeeyo bulshada aan ku wacyigelinaa in mataqaana marka aad baan uga qayb qaataa aniga ahaan si gaar ah waxaana marka aad ugu mahadcelinayaa maanta jaaniskan inaan idin iraahdo aan ka faa'iideysanaya barnaamijkan wadada dheer ee wanaagga ku dhisan mataqaana iyo horumarka bulshada waxaa loo baahan yahay meel kasta ay joogaan inay ka midoobaan qarnimadooda iyo sharaftooda iyo dignitida Soomaaliya lagu yaqiinay inay ilaaliyaan waxaana aad ugu rajeynayaa haddii Ilaahay raali ka noqdo oo Ilaahay uga baryayaa dalkeena hooyo inuu Ilaahay nabad noo dhigo dhulkan quruxda badan arkaysaan oo saa u dhisan dadkii wadaniyiinta u dhisay baa dhulka saa u dhistay annagu dhulka si qurxoon oo ka sii fiican oo ka macdan badan oo ka khayraad badan oo ka climate fiican aan leenahay nabadgelyadii kaliya aan xasilin lahayn taasuna waa mid kaliya hadda qodbaha inaan ku raagno kaga dawareegno gaarsiisay marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed gudaha dibadda jooga hal ugu dadaalo dalka sidii loo dejin lahaa talooyin fiican hala baxso waxaan leeyahay ciid wanaagsan baan leeyahay ciidii maadaama ay soo dhowdahay jaaniskan waa ka faa'iideysanayaa gudaha dibadda waxaan leeyahay ciid wanaagsan Salmaan aad baa u wanaagsan aad baa kugu mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeedna aad baan ugu mahadcelinayaa waagaga intaadan ka bixin waxaan rabaa in su'aalo ka kooban inaan ka weydiiyo wadankan muddo waxa ku soo ciishay Canada ku soo ciishay aad ku nooleed waqtiga intiisa badan waxaan rajeynayaa halkaas inaad ku soo qaadato markii ay dalkii burburku u galay ama dawladda dhexe meesha ka baxday hadda Turkiga ku nooshahay bari dhaweyd magaalada Ankara waxa ku soo badanayay inkastoo aysan badnayn dhalinyaro drugska aad u isticmaalo oo kii ugu dambeeyay telefishinada wadankan aad looga hadlayay reer Ankarana waa tahay maxaa la gudboon bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara aad baan Salmaan kugu mahadcelinayaa su'aashaas waa su'aal very important ah waa su'aal jirta weeyaan dadkii u gurmaday ayaan ku jira kamid ahaa wiilkaas waxa weey dhalinyaro yararka ah badanaa waxay isticmaalaan waxyaabaha ay sheegay magaaliga ah sida darogada khamriga xashiishka waxyaabahaas isticmaalaan marka ayaga xamili karin ba hadana mataqaana noloshooda ay saas marka majority-dooda ma aha waa macnaha hal iyo laba weeyaan oo saddex aan ku arkaa anigu laakiin ninkaas markii si caadi u yahay nin wanaagsan oo shaqaysta oo aqoon dheer leh markaan la sheekaystay oo meelintaan geeyay aan la hadlay oo ahlu salaad oo ahlu diin ah oo Sacuudi wax lagu soo baray beelada waxay ka dhacday marka u horeysaba oo soo shaqaystay inta soo shaqaysto meelaha la tago baa lagu qaldaa marka haween anagu waa ku dadaalnay waxaan ku tashanay reer Ankara jaaliyada Ankara waxaan ku tashanay cid kasta oo dhibaato hayso inaan taakuleeno gacan siino wacyi gelino u raadino meelo lagu xareeyo inaan u raadino hadda aan ku maqan yahay oo aan mataqaana dhaqan celina oo wadanka dhexdiisa ah aad
saas ayaan barnaamijyadeena ku jirta marka jaaliyadu saas ku tartay wacyigelinna waa ilaa haddaan wadnaa dhalinyaradana waa gubaabinaa dadkii waxbarashadooda aqoontooda inay sii siyaasadaan dalkan waxaa loo keenay inay wax kuwa taariibiyaasha ayaga laftooda ka wacyigelinaa inay ka haraan oo macnaha waddanka ay shafaystaan shaqooyinna loo abuuro waxaa jirta Soomaali fara badan oo qurbaha ka imaanaysa waddankan soo degaya kuwaas maxaa kula talinaya dadka faamilada qoysaska faamilada qoysaska waxaan kula talin lahaa waddankan waddan horumar way aad mataqaan hore socdo weeyaan inay u tababarshastaan sidii mataqaan ay uga qayb qaadan lahaayeen haddii noqoto sheeg weliba anigu waxaan ka jeclaan lahaa waddanka hooyo in dib lagu noqdo dadka jecel laakiin waxay ku leeyihiin dadka amni ma jiro ku leeyihiin waddanka hooyo barnaamijka jira intaas wanaagsan taasna waxaan rajaynayaa sanad bilahan soo socdo inuu amnigii sakuura noqdaan rajaynaya haddii ilaahay raalli ka noqdo laakiin qurba joogta naga sii fog sida kuwa Kanada kulada America ku nool oo caruurtooda raba inay meelahan kastaan guri raba inay ka iibsadaan inta baa waddankan uu u furan yahay open u yahay kulli hadda ninka hadda waddankan haysta anaga aad buu noo soo dhaweeyay aad baa naloo xaq dhowraa wixii ka noqota Allahu yaclam ma garan karno laakiin ilaa hadda سمعت Soomaalida meel wanaagsan ay kaga jirtaa waddanka xitaa waxa la sheegaya booliska Soomaalida markay magaalada marayaan lama baaro waa meel fiican ayaga iyo Senegal waddanka la yiraahdo ka soo jeeda waa dad marka waxa leedahay sharaftaas iyo sumcadaas hal ilaaliyo sumcada sharaftaas hal ilaaliyo soo dhalinyarada yararka oo soo galay kuwa socda yaacay ku sii yaacay waxaan ka codsanayaa jaaliyada Soomaaliyeed inay go'aamadaas ku sii wado ayaga dhalinyarada waxaan ka codsanayaa inay mataqaana dadkan ay la jaan qaadaan sida noo soo dhaweeyay sharaftii Soomaalida lagu yaqaanay tigniga inay ilaashaan intaas uga baxay Bashir ayaa lagu yiraahdaa laakiin naanaysta dadku waxay ku yaqaanaan Amir Bashir magaca Amir muxuu ku baxay Amir waxa weeyaan dadku waxa weeyaan Amir waa qofku waxa family waxa ka soo jeeda oo reer Amir la yiraahdo waxa soo jeeda Israahan baa ka soo jeeda dad waxaan ganacsataa dad ahlu diina dad nabadeed dad talo wanaagsan dadkaas ka soo jeeda marka magaca oo kaftan ku baxay maaha kaftan wax ku baxay wax la doortay midna maaha marka Soomaaliyeed waa soo jireen dheer weeyaan marka way ogolaaday waxa la yiri except marba haddaad sheeg Amirkii lagu ogolaaday anaguna inaan nagu maamushaan rabnaa Amirkaas oo talada wanaagsan iyo tilmaanta fiican iyo mar walba inta badan waxaan ku arkaa Istanbul hadda maanta ugu dambeysay garaa ku jirtay niman wax isku haystay ayaa gartooda ku jirtay dad kala dhaxaadin markaan ku arka dad ku dhex jirta waxa kala maslaxeynaysa inta badan dadka maxay kula tahay waa isku haystaan maxaa isku haystaan dhalinyarada hadal u badan dadku waxyaabo fara badan baa jira oo macnaha oo bulshada isku haysato lama soo koobi karo foorkista ayaan tan badan ma foorkista ba dacwadooda aad igu soo baatay anadu foorkista waxba kama aqoon marka waa kulleeyba rag badan waa kala ceshay صح عندنا وحويان وليبا هوش واسع كما عاجز يلا ما كعجز لكن قبل هذا كلا أنا اسطنبول يعني كرهين مقالوين كنا تكتوي إسبارتا كونيا سومالي فرق بدنا هذا إسبارتا وكلا ضد فاميلو أو ضد كحنوسن أو عفماتك ضد كحوتي يو إنك سوى يكونوا سومالي بدنا وقت أقول بعد إسرائيل مالها سنة مر عكت صومر إسا إن شاء الله تعالى وجعل هاي مال بدنا صومرو كل ونشوي يعني ماله مصعد عشان وعلاقة بصدي Soomaalida waxaan ku wacyigelinayaa aad baan Soomaalnimada dadka aad ugu dhintaanahay oo ilaa raas ka badan ilaa raas caseer ilaa gurida feeda midka shanta Soomaalida aan wala macnaha garabkay taagan yahay jecel Bashir oo ku magac dheer Amir Bashir ayuu ahaa oo Istanbul igu waramay aad oo ma astaan